waddan walba oo adduunka ku yaala wuxuu caan ku yahay wax u gooni ah oo uu kaga muuqdo wadamada kale. Muuqaalkan iyo muuqaalka xiga waxaan idinkugu soo gudbinayaa waddan walba iyo waxay dunidu ku taqaano. Waxaana ka bilaabaynaa siday u kala horeeyaan inagoo ka bilaabayna midka koowaad. Afghanistan waa waddanka soo saaro opiumka ugu badan dunida. 90% daroogada horowiinta ee laga isticmaalo dunida waxaa ku jira opium lagu beeray dalkan. Albania waa waddanka ay ku yaaleen dhufaysyada dhulka hoostiisa ah kuwa ugu badan dunida. Halkii kiiloomitir oo kasta waxaa ku yaala 5 dhufays oo dhulka hoostiisa ah. Algeria waa waddanka ugu weyn dunida ee aan dhulkiisa oolin wax biyo ah, yacni ma laha webiyo iyo harooyin. Andorra waa waddanka ay dadkiisu ugu cimriga dheer yihiin. Celcelis ahaan dadka dalkan waxay da'doodu gaartaa 81 sano. Angola waa waddanka koowaad ee carruurtu marka ay dhashaan dhintaan. Kunkii carruur kasta oo dhasha waxaa dhimata 96 ka mid ah. Antigua and Barbuda waa waddanka koowaad ee dadkiisu aysan iskhaarijin. Waana waddanka kaliya ee sanadkii 2015 aan la sheegin in hal qof uu isku khaarijiyay. Argentina waa waddanka loogu cunista badan yahay hilibka lo'da. Qof kasta oo waddankan ku nool celcelis ahaan wuxuu cunaa sanadkii 65 kilogram oo hilib lo'aad ah. Armenia waxaa ku yaala keebalka loo kala raaco buuraha ee ugu dheer, kaasoo dhererkiisu yahay 5.6 kilomitir. Australia waa waddanka ugu badan ee uu ka dhaco weerarada libaax-badeedka. Laga soo bilaabo sanadkii 1900, libaax-badeedku wuxuu waddankan ku cunay dad gaaraya 250 qof. Australia waa waddanka ugu horeeya ee shaqaaluhu helaan waqtiga fasaxa ee ugu badan. Qof kasta oo shaqaale ah waxaa loo ogol yahay 48 maalmood sanadkii. Azerbaijan waxaa ku yaala dhulka ugu ballaaran ee ay taalo dhoobada uu keeno volkaanuhu. Dunida oo dhanna ku dhawaad kala bar dhoobadaas waxay taalaa dalkan. Waddanka Bahamas ganacsiyada lagama qaado wax canshuur ah. Sidoo kale Bahrain la iskama qaado canshuurta shakhsiga ah. Bangladesh waa waddanka leh webiyaasha ugu badan dunida. Waxaa ku yaala 700 oo webi. Belarus waa waddanka ay dadkiisu ugu cabista badan yihiin khamriga. Celcelis ahaan dadka dalkan waxay cabaan sanadkii 17 litir oo khamri ah. Belgium waa waddanka la iska qaado canshuurta shakhsiga ah ee ugu badan dunida. Dadka dalkan sanadkii waxay bixiyaan 64%. Bhutan waa waddanka koowaad ee dadkiisu u badan yihiin beeraley. Ku dhawaad 80% dadka dalkan waa beeraley. Bolivia waxay caan ku tahay beeridda miraha Brazil nutiska. Bosnia and Herzegovina waa waddanka ay ku aasan yihiin miinooyinka ugu badan. Halkii kiiloomitir oo kasta waxaa ku aasan 152 miino. Botswana waa waddanka koowaad ee soo saara diamond-ka. Brazil waa waddanka koowaad ee haysta guulaha ugu badan ee FIFA World Cup. Wuxuu waddankan ku guuleystay 5 jeer. Waddanka Brunei wuxuu ku jiraa kaalmaha ugu horeeya ee wadamada aan deynta lagu lahayn. Bulgaria waa waddanka koowaad ee soo saara saliidda rose oil. Burundi waa waddanka ugu hooseeya dhinaca dakhliga dadka. Celcelis ahaan dadka dalkan sanadkii waxaa soo gala $277. Cambodia waa waddanka koowaad ee dadkiisu haystaan diinta Buddhistaha. 97% dadka dalkan waxay haystaan diinta Buddhistaha. Waddanka Cameroon waa waddanka ganacsiyada laga qaado canshuurta ugu badan. Canada waa waddanka dadkiisu ugu aqoonta badan yihiin caalamka. Central African Republic waa waddanka ugu hooseeya markii la fiirinayo farxadda, yacni dadka dalkan waa dadka ugu murugta badan caalamka. Chad waa waddanka koowaad ee hooyooyinku u dhintaan umul raaca. Waddanka Chile waa waddanka koowaad ee ilaa hadda uu ka dhacay dhulgariirka ugu awoodda badnaa caalamka. China waa waddanka sameeya wasakhowga hawada ee ugu badan. Sidoo kalena waa waddanka koowaad ee soo saara tamarta cadceedda iyo dabaysha laga dhaliyo. Colombia waa waddanka koowaad ee soo saara daroogada kokaynta. Democratic Republic of Congo waa waddanka koowaad ee dadkiisu la tacaaliyaan nafaqo-darrada. Sidoo kale waddanka dariskiisa ah ee Congo waa waddanka isticmaala korontada ugu yar dunida. Costa Rica waa waddanka koowaad ee dadkiisu ay ku faraxsan yihiin dhulkooda. Cote d'Ivoire waa waddanka ugu badan ee soo saara miraha laga sameeyo shukulaatada ee loo yaqaan kakawga. Croatia waa waddanka ugu badan ee kaliyaha lagu beero. Cuba waa waddanka haysta guulaha ugu badan ee ciyaarta baseballka. Cyprus waa dalka ay ku nooshahay haweeneyda ugu weyn ee diyaarad ka soo booday iyadoo jirta 104 sano. Waddanka Czech Republic waa waddanka ay dadkiisu u badan yihiin kuwa bilaa diin ah. 75% dadka dalkan wax diin ah ma haystaan. Denmark waa waddanka koowaad ee uusan ka dhicin wax musuqmaasuq ah. Ecuador waa waddanka ay ku nool yihiin xayawaanada karajaanka ah ee ugu badan. Masar waa waddanka ay ku yaalin godadka macdanta laga qodo ee ugu badan caalamka. Waxaa ku yaala 23 milyan oo god.
halka ay Eritrea caan ku tahay carruurta da'da yar ee shaqaysa. Waddanka Estonia waa dalka ay haweenku ka badan yihiin ragga. Ethiopia waa waddanka ugu internetka qaalisan dunida. Dalka Fiji wuxuu caan ku yahay ciyaarta Rugby World Cup-ka. Finland waa waddanka loogu cabista badan yahay kofeega. qof kasta oo waddankan ku nool maalintii wuxuu cabaa ugu yaraan 2 koob oo kofee ah. Waddanka Faransa waa dalka loogu booqashada badan yahay caalamka. 2015 oo kaliya waxaa dalkan booqday 86.3 milyan oo dalxiise. Gabon waa dalka ay ku nool yihiin daanyeerada loo yaqaano Sandtailka ee ugu badan caalamka. Gambia waa dalka ugu militariga daciifsan caalamka. Georgia waa waddanka ugu badan ee laga cuno cuntada loo yaqaano kachabriga. 88% dadka dalkan waxay pizzaha ka jecel yihiin cuntadan. Germany waa dalka haysta guulaha ugu badan ee ciyaaraha Winter Olympics-ka. Waddanka Greece waa waddanka ay dadkiisu ugu isticmaalka badan yihiin saliid saytuunta. qof kasta oo reer Greece ah sanadkii wuxuu isticmaalaa ku dhawaad 26 kilogram oo saliid saytuun ah. Guatemala waa waddanka soo saara haylka ugu badan dunida. Guinea waa dalka haysta keedka macdanta aluminiumka ee ugu badan caalamka. Guyana waa waddanka isdilka dumarku ugu badan yahay. Boqolkii kun ee kasta oo dumar ah waxaa isdila 15 ka mid ah. Haiti waa waddanka ugu ciidanka yar dunida. Dhammaan militariga dalkan waa 50 askari oo kaliya. Honduras waa waddanka la isku khaarijinta badan yahay. Boqolkii kun ee kasta waxaa la dilaa 84 ka mid ah. Hungary waa waddanka koowaad ee ay ku nool yihiin kuwa ugu badan ee jira filmaanta anshaxumada ah markii loo fiiriyo tirada dadka dalka. Iceland 92% dadku waxay isticmaalaan internetka. India waa waddanka soo saara filmaanta ugu badan ee caalamka. 2011 dalkan waxa uu soo saaray 1255 film. Indonesia waa dalka ugu dadka gaagaaban caalamka. Iran waa dalka caasimadiisa bedelay 32 jeer. Iraq waa waddanka ay ka dhacaan falalka argagixisada ee ugu badan caalamka. Ireland waa dalka ku guuleystay Eurovision 7 jeer. Israa'iil waa waddanka ay dadkiisu ugu isticmaalka badan yihiin social media. Talyaaniga waa waddanka ay ku yaalin goobaha taariikhiga ah ee ugu badan caalamka. Guud ahaan waxaa waddankan ku yaala 51 goobood oo ay aqoonsan tahay UNESCO. Jamaica waa dalka uu ka soo jeedo ninka ugu dheereeya caalamka, Usain Bolt. Japan waxaa ku yaala tirada ugu badan ee meheradaha loo yaqaano 3-star Michelin oo tiradoodu tahay 31. Waddanka Jordan waxaa ku taala goob joogeedu badda ka hooseeya 428 mitir. Kazakhstan waa dalka loogu isticmaalka badan yahay cusbada. Kenya waxay kaalinta koowaad kaga jirtaa dalalka soo saara caleenta madow ee shaaha. Kuwait waa dalka leh lacagta ugu qiimaha badan caalamka oo loo yaqaano diinaarka. halkii diinaar oo dalkan ah wuxuu u dhigmaa $3. dhanka kale Latvia waa dalka uu dadkiisu 99% ay yihiin kuwa wax akhrin kara waxna qori kara. halka Lebanon ay tahay dalka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan markii loo fiiriyo tirada dadka dalkan. 6 qof ee kasta oo ku nool dalkan qof ka mid ah waa qaxooti. dalka Lesotho waa dalka koowaad ee dunida kaasoo tamartiisa ka sameeya tamarta la cusboonaysiin karo. 100% dalkan wuxuu isticmaalaa tamartaas. Liberia waa dalka ay ka soo jeedaan dadkii ugu badnaa ee u dhintay cudurka Ebola. Libya waxaa lagu tiriyaa waddanka koowaad ee wadooyinkiisu ay yihiin kuwa ugu khatarta badan ee gaari lagu wadi karo. Liechtenstein waa dalka gabi ahaanba aad ku kiraysan kartid halkii habeen $70,000. maxaad samayn lahayd haddii aad waddankan hal habeen wada kiraysan lahayd? noogu soo qor dhanka commentiga. muuqaalkan kuma soo wada koobi karno inta hartay. fadlan la soco qaybta labaad hana hilmaamin in aad nagu soo biirto. mahadsanid.